Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa janalka Ogaalka Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijraadkeena qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal ku soo qaadan doonana barnaamijraadkeena waxaa ka mid noqonaya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo shaaciyay in dalku galay xaalad adag haddaba xaaladaasi maxay tahay halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona Farmaajo iyo Abiy Ahmed cod ay ku wada sheekaysteen mar ay ku wada xiriirayeen telefoon oo la soo dusiyay sidoo kale daawadayaal waan idin wadaagi doonaa codadkaasi oo baraha bulshada wareegaya Farmaajo ayaa ka carooday la taliyihiisa amniga qaranka Fahad Yaasiin ayuu arintan u xil saaray kooxda baraha bulshada u qaabilsan Villa Soomaaliya ee CBB loo soo gaabiyo ayaa lagu fasaxay baraha bulshada si ay arinkaasi u difaacaan warayaan daawadayaal idinkageena guuldaro culus oo soo wajahday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble sidoo kale daawadayaal waan idin wadaagi doonaa qodobadaas ayaana idinkaga rogi doonaa faahfaahintooda hayeeshee inta aanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saariyay channelka oo furan ee gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawade muuqaalka qaybtiisa hoose ee farada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawade waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shaaciyay in dalku galay xaalad adag Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah culimada diinka ururada bulshada iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa gurmadka dadka Soomaaliyeed ee abaartu hayso Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in shacabka iyo dawladduba isku kaashadaan sidii loo gargaari lahaa dadkeena abaartu saameysay guud ahaan gobolada dalka way ka sii dareysaa xaaladda abaartu haddii aan dadaalada gurmadka la dadejin lana midayn waxay xuub siiban kartaa macluul keenta musiibo xoog badan ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Rooble oo mar kale ku celiyay in dalku ku jiro xaalad abaareed oo saameysay in ka badan 5 milyan oo Soomaali ah Ra'iisul Wasaaraha ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay kulamo kala duwan la yeeshay madaxda dalal iyo hay'ado kala duwan oo caalamka ah isagoo kala hadlay sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaartu faraha ba'an ku hayso howlaha doorashada ee dalka ka socda waxay muhiim u yihiin mustaqbalka dalka balse waa in aysan naga mashquulin in aan u gurmano dadkeena abaarta oonka iyo gaajada la ildaran sidaasi ayay muhiim noogu tahay in culimada bulshada rayidka iyo ganacsatadu kaalin hormuuda ka qaataan howsha gurmadka ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ugu dambeyntii Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa tilmaamay in ay xukuumaddiisa ka go'an tahay sameynta wax kasta karaankeeda si dadka ay abaaruhu saameeyeen loo badbaadiyo markaana daawadayaal haddeen eegno madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa qadka telefoonka ku wada xiriiray codkii ama wada sheekaysiga dhexmaray ayaana lagu faafiyay baraha bulshada ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Ogaalka Media u sheegay in madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ay ka walaacsan yahay in ay suurtagal tahay in la jabsaday wada sheekaysi ku dhexmaray telefoonka xogtaan ayaa sheegaysa in arintan uu ka wareeray Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed kuna wargeliyay Farmaajo intii uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa oo uu maanta ka soo laabtay Farmaajo Abiy Ahmed ayaa rumaysan in muddo bilooyin ah ama sanado la helayay xogta wada sheekaysi ee isaga iyo Farmaajo ku dhexmareysay WhatsApp-ka Abiy Ahmed ayaa lagu waramay in uu Farmaajo u sheegay in dhanka telefoonkiisa laga jabsaday xogta ayada oo la tuunsan yahay in arintan uu ka dambeeyo dal Carabeed oo aan weli la shaacin ila wareedyada Ogaalka Media ayaa sidoo kale sheegaya in jabsashada telefoonka Farmaajo loo adeegsaday software-ka Pegasus Baywar oo ay sameyso shirkadda NSO Group ee Israel taasi oo horey madax badan oo caalamka ah iyo shakhsiyaad kale oo saameyn leh loogu adeegsaday Pegasus Baywar ayaa waxaa loo adeegsadaa in qofka la rabo in telefoonkiisa la dhex galo loo diro sawir ama wax file wata virus kaasi oo haddii uu kliga siiyo
si rasmi ah loola wareegayo maamulka teleefoonkiisa. dhowaan ayaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq uu sheegay in Farmaajo uu diiday diyaarad military oo gargaar siday oo ay Masar u soo diri lahayd Soomaaliya isaga oo ka cabsi qabay in uu xumeeyo xiriirka Abiy Ahmed. hadalka wasiirka ayaa dhaliyay tuun ku saabsan in laga yaabo in dalka xogta jabsaday uu noqon karo Masar, balse waxaa sidoo kale suurtagal ah in ay yihiin Imaaraadka Carabta ama Sacuudiga oo hore caan ugu ahaa adeegsiga Pegasus spyware. xogta aan helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in teleefoonada la dhageystay ay ku jiraan kuwa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, balse ma cadda haddii uu yahay wasiirka hadda jooga Cabdisaciid Muuse ama kii ka horeeyay Maxamed Cabdirasaaq. sawirro lagu faafiyo baraha bulshada oo u muuqda in Abiy Ahmed uu canaananayo Farmaajo ayaa wararka qaar ay sheegayaan in uu ka cariisnaa arrintan, balse lama xaqiijin karo. haddii ay dhab noqoto arrintan, waxay dalka haysta xogta u sahli kartaa in uu bannaanka keeno sir badan oo u qarsoon Farmaajo iyo Abiy Ahmed. wixii ku soo kordha xogtan waxaan daawaday idinkugu soo gudbi doonaa barnaamijyadeena soo aadan. ugu dambeyn daawadayaal haddaan eegno Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa qarka u saaran in uu guul dareysto. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo maray waqtiyadii ugu adkaa noloshiisa tan iyo markii uu mas'uuliyadda doorashada kala wareegay Farmaajo bishii May ee sanadkii tagay 2021. Rooble oo nin ku cusub saaxadda siyaasadda ayaa loo magacaabay bishii Sebtembar 2020 Ra'iisul Wasaaraha dalka, wax yar kadib markii uu baarlamaanka kalsoonida kala laabtay xukuumaddii Xasan Cali Khayre bishii Julaay 2020. waxaana mooshinkan mursal u dhiibay madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo. inkastoo uu dadaal badan sameeyay, haddana Ra'iisul Wasaaraha ayaa ku guuldareystay inuu hakiyo dib u dhacyo ku yimid jadwalka kal hore, taasoo dadka siyaasadda falanqeeya ay ku micneeyeen xilgudasho la'aantiisa iyo faragelinta joogtada ah ee Farmaajo uu ku hayo howlaha doorashada ee socda. waxaa jira 2 heshiis oo doorasho oo Rooble uu la gaaray madaxda 5 dowlad goboleed ee federaalka tan iyo bishii May 2021, kuwaasoo aan wax miro dhal ah ka soo bixin, taasoo keentay in dib u dhac uu ku yimaado doorashada, sidoo kalena sababay khilaafyo hor leh. golaha wadatashiga qaran ee ka kooban dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa horaantii bishii hore isku raacay in muddo 60 maalmood lagu soo gabagabeeyo doorashada laga bilaabo 15 bisha Janaayo kuna eeg 25 bishan Febraayo sanadkan cusub 2022. jadwalkii ugu dambeeyay ayaa waxaa ka harsan 18 maalmood, iyadoo 169 xildhibaan oo ka mid ah 275 xubnood ee aqalka hoose ay ku harsan yihiin maamulada. tani waxay muujinaysaa fashil ku yimid doorashada. markasta oo doorashadu dib u dhac ku yimaado, waxaa sii badanaya waqtiga uu Farmaajo xukunka sii hayn karo. 4 sano ee muddaxileedkiisa ayaa ku ekaa bishii Febraayo ee sanadkii hore, iyadoo uusan jirin madaxweyne kale oo la doortay. Soomaaliya waxaa soo food saartay dhibaatadii ugu darneyd ee taariikhda soo marta. Farmaajo ayaa sanadkii 2021 sameeyay 2 isku day afgambi, waxaana taasi ka dhalatay loolan adag oo u dhaxeeyay isaga iyo Ra'iisul Wasaaraha oo taageero ka haysta beesha caalamka iyo xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal waa inageynta barnaamijyada channelka Ogaalka Media aan ku leenahay YouTube-ka. haddii aad daawatay laakiin oo sar subscribe noo sar channelka furaga maralka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.